عليكم ورحمة الله وبركاته walaalyaal soo dhawaada maanta cashirkeena waxaan ku qaadan doonaa Allah hadduu idmo waa maxay sababta in ka badan 90% traderska oo dhami ay lacagtooda ku waayaan IQ option. Sababtaas ayaan falanqeynaynaa waxa ay tahay 90% traderska dhamaantooda ay lacagtooda ku waayaan platformkan IQ option. dhowr qodob ilaa 7 qodob baan insha Allah dul istaagi doonaa aan isla socono video inuu dheeraado marno channelka subscribe saar Better Option Academy soo dhawaada walaalayaal. عفوا qodob koowaad xulashada IQ waxay sheegaysaa in ilaa 90% xisaabaadka firfircoon ay lumiyaan lacag. Waxay dhuminayaan lacag. Taasi waxay ka dhigan tahay in waxay ka dhigan tahay in 10% oo ka mid ah dhammaan koontooyinka firfircoon ay lacag ka helaan platformkan. Runtu waxay tahay in badan oo traderska ah oo ay lacagtoodu ka lunto ma qorsheeyaan inay lumiyaan lacagtooda. Wax qorshaha micnaha ma sameeyaan. Lacag ka dhumaysa isma dhahaan, ayaga kuma xisaabtamayaan inay lacag ka dhumayso. Way isla seexan yihiin mar walba. Profit aad helaysaa, waad faa'iideysaa, bay suuqa kusoo galayaan. Marka inaad qorsheysato ayaa loo baahan yahay, inaad mararka qaarna inaad qasaarto. labo xaqiiqdii waxay sameeyaan qaar ka mid ah xirfadaha guuleysta hal mar in muddo ah. Si kastaba ha noqotee, xirfadahooda guuleysta ma helaan lacag ku filan oo ay ku bilaabaan khasaaraha. Laakiin muxuu 100% sida badan traderska lacag ugu lumiyaa? Marka dadka guuleysta adi 100% inta badan lacagtu waa ka luntaa. Marka sababta ha noqotee xirfadahooda guuleysta ma helayaan lacag ku filan oo ay ku bilaabaan khasaaraha. Laakiin muxuu 100% sida badan traderska lacag ugu lumiyaa? Qodobka 3, sababta ugu weyn ee traderska ay lacagtu u waayaan waa joogteyn la'aan. Waa ayagoon joogteyneynin suuqan IQ option. waqtiyo kooban bay isticmaalayaan kadib way ka baxayaan. Marka waxaa loo baahan yahay in la joogteeyo suuqan. Waxay yaqaanaan daraasiin xeelado ganacsi. Waxay yaqaanaan istiraatiijiyaal kala duwan ayay yaqaanaan oo isku daya inay u adeegsadaan suuq kasta oo ay ka ganacsadaan. Waxay sidoo kale ka ganacsadaan dhowr suuq isla waqti isku mid ah. Dhowr trade ayay galayaan isku waqti oo isku mid ah ayay galayaan. Marka wax trading plan ah, wax qorshe ah ma lahan. Marka taas baa dhibaato keenaysa marka inay si fudud ku khasaaraan. 4 sidoo kale si dhif ah ayay ula socon doonaan qorshahooda ganacsi. Si dhif ayay ula soconayaan, warbu ma hayaan, maba joogteynayaan. Dhawaaqa yaqaan. Dhammaan labadan si wada jiraan waxay ugu dambeyn u horseedi doonaan khasaarooyin waaweyn. Waxay u horseedi doonaan inay ku dhacaan khasaarooyin waaweyn. Mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee aad u lumin doonto lacagtaada ayaa ah isku dayada istiraatiijiyooyinka trade oo aad u badan. Tixgeli sinyadan. Waxaad ka heshay istiraatiijiyad ganacsi oo fiican khadka internetka. Waxaadna go'aansatay inaad ku dabaqdid tradeskaada. Marka waxyaabaha khasaaraha keenaya waxaa ka mid ah
qofka inuu istiraatiijo oo khadka internetka uu kasoo helo si fudud, istiraatiijiya asigoo dhahaya dabaq inuu lacagtiisa geliyo, markaas si fudud lacagtiisa ay uga khasaarto. 6 kuwa ugu horeeya xirfadaha waa guuleystay kadib waxaad go-aansatay inaad lacag badan gasho ganacsigaaga xiga way lumisaa niyad jab. Waxaad ku qortaa istiraatiijiyad inaad nasiib u leedahay, isla markaana raadiso istiraatiijiyad ganacsi oo cusub. Qodobka 7 miyaanay fududaan lahayn in la aqoonsado waxa dhab ahaan ka dhigay istiraatiijiyadda inay shaqeyso. Waxaad ogaan kartaa inay si fiican ugu shaqeyso xaaladaha suuq gaar ah, isbedelo ama kala sareyn. Hadda oo aad ogtahay waxa damaanad qaadayaasha khasaaraha ah marka ay ku ganacsanayaan barnaamijka IQ option, 10% traderska ay lacag u helaan. Marka qodobadeedii intaan ayaan kusoo koobeynaa ee ku saabsanayd sababta dadka 90% ay ugu khasaaraan. Halkaas baan kusoo koobeynaa. Wixii comments ah insha Allah nala soo wadaag, channelkana subscribe saar. Walaalayaal Soomaali weyn meel walba oo aad dunida ka joogtaan, soo dhawaada channelka waa channelkiina. Telegramkeena linkigiisa hoos ayuu yaalaa, kusoo biir. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.